laandheeranima iida waxba layga jariwaa. hodan cabdiraxmaan oo u cabsatay ninkeera mursal shaki soo galay iyo hees dhagahadal ay soo qaaday oo xog badan laga helay. ladi waalibteediina goyn waa laandheeranimo iidaa waxba layga jari waa wareey waa gantaalkii ugu cuslaa oo farxiyo fiska looga soo gano Ameerika. hodan cabdiraxmaan maxamed joogdheertii xureysatay mursal muuse balse maalmahaanay ku kala baaliyoobeen. Mareykanka iyo Hargeysa ayaa madaafiic cusub soo gantay waxay halgaadyo aanay ka soo kici karin ku dhufatay farxiyo fiska oo rabtay in ay ka dulqaado laacibkani ay isla soo jabeen ee ay ilaa yaraantoodii isla soo heesi jireen. warsheer gareeya muuqaalkani cajiibka ah jaalayaal Somali Social TV subscribe saara oo follow soo dhaha page-keena warbixinteena aan toos u gudagalno. waa tahay aan ku bilowno. fanaanada caanka ah ee hodan cabdiraxmaan ayaa toddobaadkani ku soo bandhigtay fagaarayaasha fanka hees dhaaftay gantaal wax la moodo meesha uu ku socdase aan lagu carbaabin miraha heesta. ishaartuse meel bay haydaa oo fiska ayaa duqayntu ku socotaa sida laga dheehan karo heestani laandheere oo ay erayadeeda ka mid yihiin laandheeranima iida waxba layga jariwaa. hodan ayaa tiri laandheeranimo iida waxbana layga jari waa iyadoo ula jeeda yaa hooy ka joog farxiyay ka joog mursal horaa loo wadan waaye. sababta heestani garbaashka ah ku dhaliday hodan ayaa ah heestani kale oo ay fiska u muuqatay inayba si toos ah ula wareegtay majaraha sayga hodan mursal muuse. heestani ayaa noqonaysa garbaashkii ugu weynaa ee laba fanaan oo dumar ah dhex mara waxayna hodan ka dhimataa sida ka muuqata in laga soo maro dhinaca mursal. hodan ayaa mursal ka dhooftay Sebteembar 2020 maadaama uusan haysan sharci Mareykan ah wuxuuna ku sagootiyey heesta ay erayadeeda ka mid yihiin in yar ruuxii ku dhimaan ilxun baan ku eegaa midka adiga ku dhowraan anna soo dhawaystaa. intaasi ayaa ku soo koobaynaa warbixinteena aan ku eegnay heesta laandheeranimo iyo garbaashka ay xambaarsanayd ee nabadgelyo.